Yaasmiin Mayow waa hooyo Soomaaliyeed kana mid ah guddigii doorashada Soomaaliya waxayna horey uga mid ahayd wariyaashii soo maray dalka balse hadda waxay ku xanuunsanaysaa Istanbul xanuunka kansarka ayaa dhib ku haya taasoo sabab u noqday in mid ka mid ah xubnaheedii la jaro. Bismillahir Rahmanir Rahim. ugu horeyn aadaan idin salaamayaa meel walbaad ku nooshiin xaaladdeeda caafimaad runtii waa soo hagaagaysaa maalin ka dambaysa alxamdulillah daawooyinkana waa ii bilowdeen oo waa ii socdaan sidii hore namihii xagga niyad ahaan iyo weliba xagga jir ahaan waxaad moodaa inaan soo kabanayo alxamdulillah. baaq ay u jeedisay shacabka Soomaaliyeed ayaa si degdeg ah loogu soo jawaabay waxa ayna gacanta iminka ay ku haysataa lacag gaaraysa $37,290 muddo bila ayna ku heshay gudoomiyaha jaaliyadda ayaana gudoonsiyay. run ahaantii habeenkadii imaanaysay waan baaqa jeedinayay isma daynin jawaab noocan oo kala imaan doono waxay iga ahayd bulshada u sheeg xaaladaad ku sugan tahay sidaa tahay isla habeenkii markii barnaamijka uu hawada galay anigu maanan ogeyn laakiin waxaan ka war helay taleefankaygu lambaro tiro badan oo dibadaha ah iyo kuwa gudaha ah iyo weliba kuwa waddankan joogo Turkiga oo iska soo daba dhacayo kadib waxaan isiri masalmaana hawada geliyay klibkii bal fiiri markaan page-kaaga arkay dhowr saacadood ka hor uu hawada ku jiray wuxuu ahaa jawaab fiican ayay dadkaasi wada bixiyeen haba ugu badnaaday suxufiyiinta meel walba ay joogaan adduunyada sidoo kale guddiga anigaan ka tirsanahay guddiga doorashooyinka ay gudoomiye Xaliimo tiri abiilka socdo meelan uga harno haba yaraatee ma jiraan iyo dad badan oo ay soo wacay yiraahdeen Yaasmiin run ahaantii xaaladaada sidaan inay tahay ma aanan malaynaynin waxay weliba naxeen markaan iri xanuunkaani waxaan ku waayay qayb ka mid ah xubin ka mid ah jirkayga markaan iri haddana waxaan khatar ugu sii jiraa in meelo kale ay u gudbaan. bararka saaran gacanteeda waxa uu yimid hilib si qaldan loo qaaday sida ay maamo Yaasmiin Mayow ay ii sheegtay. gacantaan inay bararto waxaa sabab u ah anigoo iska jooga shaqadeydii iyo 10 maalmood oo fasaxa oo corona walwalka bilowga laga qabay aan waxaa la siiyay Yaasmiin bal 10 maalmood ka faa'iidaysay isbitaal Digfeer tag jagab isku soo sameeyo qanjirkan kilkisha kaaga yaalo sanadka horena ku yaalo ilaa haddana ku yaalo baabahaynin bal muxuu yahay soo baaritaan iskaan computer wax walba waa la saaray raajito dhiig inta qof binaadan wax laga baaro dhan waa laga baaray daktarka Turkiga markaan u tagay wuxuu leeyahay adiga maxaa iska baaraysaa yani waxaa yiri waxaa suurtagal ah waxaan inay kansar yihiin kansar ma diga baartiin dhaxal baa u leedahay ani runtii familkayga waxa kansar uu qabaa la dhahayo ama ma maqlin marka waxaa yiri wax dhacalan u leeyahay mala waxa qabta ma aqaan iska baxo yiri qaybta qalliinkan ku gudbinaa qaybta qalliinka dhaqaatiirta Soomaalida la kulmay sidoo kale ayagana baaritaan ay geliyeen waxay lacag kale ayga qaadinayo waa kana baaritaan isla isbitaalkan ku sameeya waa maraysa waa maray isla su'aalkii ninkii Turkiga dhakhtarka ayagana weydiiyeen markaas waxaan ku yiri suurtagal ma tahay haddii qanjirka la jaro oo shaybaar la geliyo in la ogaan karo waxaan inay kansar yihiin in kale waa samayn karnaa diyaar ma u tahay diyaaraan u hayaa isla markii in shaybaar waxay ii qoreen computer markay ii qoreen adiga cadyara laga gooyay dhiig badanaa meesha ka imaaday qaybta computerka aan u gudbay dhakhtarka kale computerka saaraa wuxuu yiri yaa ku qalay adiga ani qolaalkaas aniga la igu qalay qolada ku washa Soomaaliya mise Turki Soomaali waaye shaqadoodi ma ahan maxay ku qaleen shaqadoodi ma ahan dhaxdooda muran dhaxmaray ani waa shaqii marka bas meeshuu dhigayso computerka saaro meel dhigayso si computer loo saaro maama iska istaag hor iska baxo yiri waa baxay adiga muddo 10 maalmood kadib isbitaalka waa xirmay laakiin gabdhahan ka aqaana waxaan iri
lambarkii magacayga waa kana computerka iga raadiye jawaabta kaliyaan rabaa inaan ogaada xiri sababtoo ah yani shaki waxaan qabaa xanuunkaas inuu jiro way arkeen waxay dhaheen xanuunkaasaan qabtaa kadib dhakhtar kalaan tagay isbitaalka yaargaleerdi way fiiriyeen waxay yidhahdeen annaga qalabka kansar lagu baaro ma hayno saa darteeda waxaan dareemaynaa waxaana qalad in loo qalano magaynaynaa isbitaal kalaan tagay ayagana qalad in loo qalay inta markaan imid dhakhtarka waxay yidhaahdeen yacni waa la qalaa laakiin si qaldan loo qalaya waxay keentay in 3 xidid uu qarxo qaraxaasna uu soo noqdo in dhiigii wadnaha iyo gudbaya iyo biyihii inay beerdaroobaan oo ay gacanta ay ku shubmaan marka wax kale ma ahan kor le inaad u hayso gacanta ama fiisoterabiya loo sameeyo maane wax kale ma xanuunkii kansarka yahay waxaa iga xanuun badan gacantaanu dhulayso ana ka socon karino ana ka jiifan karino aad u malaysid inay hoos ii riixanayso culayskiisana wax lagu qiyaas lama yaqaano waaba kintaal bariisado kor waay xamalay la mid tahay maxaa daawo maxaa xal waa yiraahdeen marka wallahi in fiisoterabiya lagu sameeyo kaliya maana wax daawo mala ilaa hada antibiotic bisa lagu qoraa lagu leeyahay iyo xanuun joojiye kuwaanu iska isticmaal wax daawo kale mala gacanta kor waay adiga waxa waay maalintii saliida lagu masaajeeyo waxaanan ahayn ilaa hada dhaqaatiirtaan kuma intaasi kadib gudoomiyaha jaaliyadda Sheekh Maxamed ayaa waxaan weydiiyay waxa ay ka caawiyaan Maamo Yaasmiin Mayow anaga ka jaalid ahaan runtii walaashan waa ka warhaynay intii joogtay dhowr jeer waa soo booqanay mar waxaa jirtay quraan la saaray oo ma sha Allah hadda ay runtii aad iyo aad maartay ugu caafimaaday oo runtii alxamdulillah ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ka aqbalay marka midda kale waxaan hadda aan kulay processkeeda u socdaa in walaashan ka saacidno sidii maartay daawada raqiiska ay heli lahayd oo hadda dadaal aan ugu jirno inay hesho fiisoterabiya oo raqiis ah oo lacag la'aan ah asina free ah oo loo sameyn doono insha Allah marka arintaas aan gacanta ku haynaa shacabka guud ahaan wadankan degan jaalid Soomaaliyeedna waxaan weydiisanaynaa inay u soo duceeyaan walaashood in Ilaahay caafimaad taam siiyo insha Allah ta'ala